بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعض صحافة aad bay u mahadsan yihiin booqashada soo booqateen xildhibaanada meesha joogana iyagana waa oo walaalahay ah oo aan halkan ku wada shaahaynina waa mahadsan yihiin awal waxaan rabaa inaan ka hadlo saaki waxaa jiray kalfadhigii baarlamaanka kalfadhigii saddexaad kulankiisii saddexaad ayada oo warqadii xaadirinta la saxiixayo oo ay socoto isdiiwaangelintii qaabkii lagu geli jiray iyo nidaamkii baarlamaanka uu socdo xildhibaano kor u dhaafay ilaa 150 xildhibaan ay markaas soo xaadirtay saacadana ay ku beegneed 1 saac iyo 2 saac oo 5 daqiiqo dhiman ayaa waxaa soo galay siihayaha xilka gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude wuxuu xildhibaanada ka codsaday in muxuu ahaa ay maqlaan oo ay dhageystaan waxa qabaarkaas u haayo oo uu subaxan saakiya muxuu ahaa ka soo baxay xafiiskii gudoonkii dacwada ay ka taaleen wuxuu inoo sheegay warqad ay jeeb kala soo baxay warqadii ayuu akhriyay warqadii waxa ku qoraa in gudoomiyihii dacwada ay ka taalay oo xilka ka dagay oo muxuu ahaa iscasili sida awgeedna kulanka maanta loo balansiyaa oo hal ajenda ahaa ajendahaas oo ahaa ka doodista iyo akhrinta mooshinkii muxuu ahaa 14kii bishii Maars laga keenay gudoonkii baarlamaanka ee hadda xilka ka dagay aad iyo aad baan u soo dhaweynay gudoomiyaha ku meel gaarkaana waa ka aqbalay warqadaas ayada warqadu waxay tilmaan cad u tahay in qofna oo xilka isku sii celin karin hadii mar ay dacwo ka timidna gudoomiyihii inuu noo tanaasuli oo muxuu ahaa xilkii iyo dacwadii ka socotay oo soo afjaro aad baan ugu faraxnay muhiim waxa qofka xilka haya saddex nooc ayuu isku casilaa oo dastuuriya oo dastuurka uu qorayo inuu soo qoro warqad qoraal ah oo muxuu ahaa ka hadlayso inuu xilkaas qofkaas uu isiga dagay marqaatiyeysan iyo in muxuu ahaa video ama muxuu ahaa saxaafadda oo maqal iyo muuqaal ah oo codkiisa la hubinayo suuradiisa la hubinayo oo iscasilaadiisa ku soo gudbiyo iyo in golaha uu hor yimaado oo casilaadiisa ku gudbiyo saddexdaas nooc oo qofka xil haya aan xilkiisa u ku wayn karo ayaa saaki gudoomiyihii noogu timid waan soo dhaweynaynaa waana ugu mahadcelinaynaa waayo waa runtii aad baa xildhibaanada u soo dhibsadeen sababtoo ah mar haddii la keeno mooshin noocan oo kale ah waa lagu kala aragti duunaanayaa aragti duunaanshahaas waxay nagu qaadatay muddo 20 iyo dhowr casho in golihii baarlamaanka muxuu ahaa uu ka bilaaban lahaa mooshinka ay qolo badan oo walaalahayna ay ka gows adeegeen oo ay yiraahdeen golihii in la tago mooshinka la aqriyo ay diideen hadda waxyo dhan waa iska soo afjarnaa xildhibaanada waa midoobayeen waana midaysan yihiin kala aragti waa meesha way ka baxday aad baan ugu farxaynaa qof kasta oo mas'uul ah oo muxuu ahaa wax fahmayana wuu soo dhaweynaya waayo waa noola fududeeyay intay aniga waxaan qabaa haddii ay dooda ka bilaabmi lahayd meesha xataa si dimuqraadiyadda haddii loo doodo xataa inay ka dhib badnaan lahayd xildhibaan saaxiibka oo ku naqdinayo oo qodob sharci ku sheegayo iyo adigoo qodob sharci u sheegayo iyo future-ka oo meesha ay isugu soo aruuraysa ay tahay muxuu ahaa in cod la qaado marka tana ka aad iyo aad ugu fudud marka gudoomiyihii xilka ka dagay gudoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari aad baan u soo dhaweynaynaa muxuu ahaa fududeyntaas oo fududeey waa nin oday ah waa nin 4 sano oo hore baarlamaankii 9 soo hogaaminay 1 sano iyo biliyaalna oo soo hogaaminay baarlamaanka marka runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa intuu xilkaas hay wixii la qabtay oo surmuud u ahaa iyo runtii muxuu ahaa sidoo wax uu soo hogaamiyay hadda xilligan maanta la joogo waxaan u aragnay xilligii ku habooneed oo ka hor wareegi lahaa golaha inay noqotay
sababtoo ah qofka haddii xilka muddo badan uu fadhiyo waxna waa ka halaabayeen waxna waa ka samaynayeen marka wixii ka halaabay oo hadda lagu soo eedeeyey mar haddii isgaraaqsaday oo muxuu ahaay xilka sidaas ugu degin annagana waa soo dhaweynaynaa allah subxaanahu watacaalana waxaan ka baryaynaa booskiisa nin lamid ah oo muxuu ahaay kheyr qabo oo aanna dhibin haddii aan u baahano inuu xilkii uu nooga dego aanna dhibin inuu noo yimaado insha allah xildhibaanadana arrintaas wada hadallo badan ay ka geli doonaan insha allah maalmaha soo socoto sida xeer hoosaadka iyo dastuurka qabo muddo 15 casho ah gudahooda in guddoon cusub baarlamaanka uu yeesho mar haddii xilkii uu ka dego guddoomiyihii markaas xilka hay marka waa wax dastuuri ah 15kaas casho oo ka bilaaban doonto muxuu ahay maanta ka bilaaban doonto iyo muxuu ahay codsigii muxuu ahay soo jeediyey Jawaari oo Arbacada inuu khudbad ka jeediyey baarlamaanka waana laga aqbalay sida aan arkay wax hadda oo naqdi ma maqlin mana arkaynin wax dhibeena malaha waa xildhibaan annaga inaga mid ah Jawaari xildhibaan Jawaari waa xildhibaan annaga naga mid ah oo sharaf leh golaha soo hogaamiyay birina mid kale hogaaminay marka anagu ma doonayno dadna inaan caburin doonimayno laakiin waxyaabaha sharciga mooshinka ku qoraa waxay ahaayeen la xisaabtanka hadii xilkiisu ku waayay waa oodna qaatay asaga waa aad baan ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad intaba idinkana waad mahadsantihiin haddaan wax su'aal ay weydiinay waay xildhibaan waxaan rabnaa inaan ku weydiino mooshinka laga keenay guddoomiyaha Jawaari xildhibaanadu aad bay ugu kala duwanaayeen weliba number badan oo xildhibaanada kamid ah ayaa aad idinkaga soo horjeeday welina waxaad moodaa in kastoo gudoomiyuhu iscadilay in kala aragtay doorashii ay jirto marka ma moodaa in baarlamaanku uu qas hor la sii geli karo gudoomiye ka baxay meesha waa mahadsantahay ma galayo baarlamaanka sida caalamka waa ay nala wadaagaan baarlamaanka oo kala aragti duwanaada laakiin golaha kuma kala tago markii hadda ay dhamaato wixii la isku haystay waaba iska dhamaatay ay sidaan oo kale u dhamaato xildhibaanada ayaga is dooranayo golahooda ay tagayaan waxay ka tashanayaan siday wax ku dooran lahaayeen guddiyo doorasho la sameyn doonaa muxuu ahaay wixii hore oo soo dhacay waa la iloobayaa waayo waxa loo iloobayaa waxa inoo taalay iyo wax ma ahayn waajibka nala saaray ma ahayn qof sharcigiis qof xilhaaya inaan ku waardiyeyna meesha waxaan xilkii nala saaray ayaa sidiisa u socdo marka marnaba baarlamaanka Soomaaliyeed markii ay gudaha ku jiraan siday u xisaabtamayaan siday dadku u xisaabtamayaan inta waxaad moodaa dadaan weligood heshiin karin laakiin markii ay ka soo baxaan hoolkii meeshii lagu xisaabtamay saaxiib ay ahaayeen ilaa saaka waxa ay soo wacay oo ay hambalyeynay groupka hadda aad sheegaysid oo muxuu ahaay ku hambalyeynay xilka tagista odayga iyo soona dhaweynayo in baarlamaanka Soomaaliyeed hoggaan cusub oo yeesho marka baarlamaanka Soomaaliyeed ma kala tagaayo midnimadii waxay ka bilaabatay saaki markii la helay warqadiisa xasilaada odayga waxaan la soconaa Jawaari in uu ku madax adeegay in uu soo iscasilay marka maxaa soo dedejiyay go'aankan hadda uu qaatay Jawaari dabcan waa garaawsaday garaawsho la'aan xil looguma tago waxaa laga yaabaa inuu asaga dib si ugu noqday oo dhacdooyinkii intii hadda 14 bishii Mars laga keenay mooshinka laga keenay iyo dhacdooyinkii dhacay inuu dib u akhriyo ninka waa nin mutacallin waa nin wax fahmay inuu saxay oo dib u soo saxay ayaa suurtagal taas laakiin su'aasheed sida dhabta asaga xaq u leh in aad weydiisay adoo mahadsan waxaad sheegtay shuruudaha asilaada ay ku ansahaysa inay ku jirto warqadda marka dad badan warqadii waxay ka keeneen shakiga ka muujiyeen ma jiraan dad marqaati ka ahay marka warqadda qorayo haddii aysan jirin warqadaas oo ma ma dhihi karo ninkaan intuu hadlo waa aniga maaha waa laga been abuuray marqaati bay leedahay waxaa ku qoraay oo marqaatiga meesha ku qoraa horta marka hore warqadda madaxweynaha ayaa loo gudbiyey laakiin waxaa ku qoraay marqaatiyaal oo nin uu yahay mahad gudoomiyihii labaad ee baarlamaanka mahad Cabdulla Cawd iyo muxuu ahaay iyo habdhowraha ama veebka baarlamaanka nuux ninka la yiraahdo
ayaan ka garanaya magacyada laga xaadiriyo oo goobjoog ahay markuu saxiixay marka saxiixaas iyo qoraalkaas waxyaabaha ay ku ansaxdo iscasilaada waay insha allah annaga kulley waxaan qaadanaynaa xaqiijinta ay mas-uuliyiinta ay xaqiijiyeen arrintaas iyo qoraalkiisa marka wax dastuuriya waaye uma arko in ay hadal ay isku soo laabanayo